moogtahay in isticmaalida extensionisku ay kor u qaadayaan inaad shaqooyin badan u qabato si dhaqso leh fududna. Muqalkan waxaan kula wadaagayaa 6 extension oo aad ku horumarin karto shaqadaada. waxaa ka mid ah extensionskaasi kuwa ka caawinaya web development-ga, designing-ka iyo security-ga. ugu horeyn extensionsku waa software program yar kuwaas lagu soo dejiyo web browserska si ay ugu soo daraan shaqooyin dheeraad ah oo muhiim ah. waxayna isticmaalaha browserkaasi u ogolaanayaan inuu samayn karo customization ama waxa uu doono bedeli karo. iyagoo extensionskaasi kugu soo daraya browserkaaga features aan hore u lahayn. waxayna extentionsku qabtaan shaqooyin kala duwan sida web programming, xaysiimaha, kuwa sameeya automation iyo kuwa kor u qaadi kara productivity-gaaga. Okay, extension koowaad ee muuqaalkan soo qaadanayna waa Colorzilla. extensionkeena wuxuu kuu sahlayaa inaad hesho color code-ka saxda ah ee aad rabto. tusaale ahaan markaad tahay web designer ama graphic designer, inaad isticmaasho color codes sugan waa qodob aad u muhiim ah. sidoo kalena inaad samayn karto gradient school iyana waa muhiim. extensionkanina aad buu ku anfacayaa. Okay, ugu horeyn soo degso browserka Isticmasho, kadibna soo furo, dooro pick color, kadibna saar meesha rabto inaad colorkeeda hesho. halkan waxaad kili kartaa inaad copy dhigi karto color code-kaad soo heshay isagoo formats kala duwan ah. extensionka labaadi waa Webmanager. extensionkeena waa mid ka mid ah ugu faa'iidada badan, waxaana ku caawinaya markaad baranayso web development-ga ama samaynta websiteska. shaqada ku qabanaya Webmanager waa inuu ku tusiyo teknoolojiyada kala duwan ee websiteska ku dhisan yihiin. طبعا websitesku kaliya kuma dhisnaa HTML iyo CSS, bal haddaba aynu aragno teknoolojiyada kale ee qaybta ka ah web development-ga. soo degso Webmanager, kadibna tag website-ka rabto inaad ogaato teknoolojiyadiisa. waxaynu tusaalaha soo qaadanaynaa GitHub, kadibna soo furo Webmanager. halkan waxaa kaaga muuqanaya teknoolojiyada kala duwan ee uu ka samaysan yahay GitHub. kaliya tan kuma koobna web la xiriira programming-ka, balse waxaa sidoo kale ku jira management tools-ka uu adeegsanayo GitHub. haddii doorato mid ka mid ah teknoolojiyadahan, waxaa ku soo baxaya macluumaadkooda iyo meelaha kale ee sida weyn loogu adeegsado. sidaasna waxaad ku ogaan kartaa waxyaabaha kala duwan ee website ku samaysan yihiin, taasoo kuu fududayn karta inaad barato teknoolojiyada badan. extensionka saddexaad ee muuqaalkeena kusoo qaadanayna waa Dark Reader. waxaana extensionkani uu samaynayaa in websiteska kaaga dhigo dark mode. haddii aad tahay dadka jecel dark mode-ka, extensionkani wuu ku anfacayaa. waxaa sidoo kale uu leeyahay inaad samayn karto customization sida inaad kor u qaaddo brightness-ka iyo waxyaabahan oo dhan. extensionka afraad waa Topi. waxaana extensionkani ku sahlaya inaad si fudud maamuli karto tabska ku furan, isagoo kuu save garaynaya kuna ogolaanaya inaad marar dambe si fudud soo booqan karto. waxaad sidoo kale u samaysan kartaa tabska qaybo kala duwan, taasoo ugu fududayn karta inaad si sahlan ku hesho tabkaad rabtay. extensionka shanaad ee muuqaalkeena kusoo qaadanayna waa Lighthouse. waxaana extensionka ka caawinaya inaad analysis ku samayn karto haddii aad leedahay website, isagoo kuu soo bandhigi kara warbixintan ku saabsan performance-ka website-kaagaasi. waxaanu sidoo kale ku tusinayaa soo jeedinaha iyo meelaha ay tahay wax ka bedesho. extensionka ugu dambeeya ee muuqaalkeena kusoo qaadanayna waa uBlock Origin. extensionkeena waa mid aad u muhiim ah, khaasatan haddii aad adeegsato browser aan lahayn ad blocker built-in ah sida Chrome oo kale. waxaana extensionkani ka caawinaya inuu ka blogareeyo xaysiimaha ay websitesku adeegsadaan. kuwani waa kaliya qaar ka mid ah extensionska aadka loo isticmaalo, balse way badan yihiin extensionska jiray. waxaadna linkada extensionskani ka heli kartaa qaybta description-ka. adigu hore u isticmaashay qaar ka mid ah extensionskani, arrintadan mula wadaag qaybta comment-ga. ana ilaawin inaad muuqaalka like saarto lana wadaagto asxaabtaada. mahadsanid.